الله عليكم إذ لهانتين بخيارتا هودا نقلو حديدا ميل كاستي ودنيدا كجوغتان ومركلة iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa bayaan ka soo baxay odayaasha garaadada iyo cuqaasha ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba ay ka baxaan maamulka Somaliland iyo ciidamadooda deegaanada ay kaga sugan yihiin goboladaasi waxaa kaloo daawadayaal ay sheegeen in ay wada tashi dib isugu noqon doonaan dadka qurba joogta iyo odayaasha iyo guud ahaanba dadka deegaanka oo ay ka tashan doonaan masiirka ummadda deegaanada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn daawadayaal barnaamijkeena ayaan ku lafa guri doona hadduu rabbi idmo bayaankaasi iyo weliba xaaladda ku gadaaman magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba xaaladihii ugu dambeeyay waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in la isugu tagay muxaafid iyo mucaaradba taasoo la doonayo in lagaga wada hadlo masiirka ummadda Koonfur Galbeed ee ku dhaqan guud ahaanba magaaladaasi iyo gobolada Koonfur Galbeed waxaa kaloo meesha ka maqnayn dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan la taliyaha dhanka amniga oo Masar Xuseen Macalin ayaa beeniyay wada hadal ay kooxda Al-Shabaab la sheegay in ay la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda ayaa ganafka ku dhufatay in wada hadalkaasi uu jiro waxay kaloo sheegeen in ay soo dhiibi karaan balse uusan jirin wax wada hadal oo lala furayo kooxda Al-Shabaab arrintan ayaa u muuqata dadka siyaasadda ka faalooda in ay kooxda wiiqatay haddaba daawadayaal arrimaha ku gadaaman iyo guud ahaanba kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale barnaamijka kaga bogan doontaan waxaana barnaamijka la falanqeyn doona saaxiibkay gooni fargado waa mahadsantahay haddaan ku hormarno magaalada Laascaanood shir ayaa ka socday shalay iyo maanta waxaana u dhexmarayay odayaasha iyo dadka deegaanka iyo wasiirro ka socday Somaliland kuwaasoo erga ka ah Muuse Biixi Cabdi halkaasoo wada hadal dheer iyo wada shirar gooni ah lagu yeeshay magaalada Laascaanood ayaa waxaa lagu soo saaray bayaan aad u culus kaasoo aan lama filan ku noqday Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa waxaana la sheegayaa in ay soo saareen in loo daayo beelaha dadka deegaanadaasi degan in masiirkooda loo daayo beelaha degan ee lagu magacaabo Faqashini iyo nimanka la yiraahdo Dhulbahantay in loo daayo howshooda go'aan ayaga soo saari doonaan ciidamada Somaliland ee gabi ahaanba iskaga baxaan gobolka Sool dib dambana aan loo arki karin waxayna sheegeen in amniga inay la wareegaan dadka deegaanka iyo ciidamadooda ayna si ku meel gaar ah amniga loogu wareejiyo wax alla wixii dhintay iyo wixii dhibaato ahna waxa way mas'uuliyadeeda iyo hanti burburtayba inuu Muuse Biixi Cabdi maamulkiisa ay qaadi doonaan marka arrimahaas oo dhan iyo masiir kale oo la sheegay in shir weyne qaran ay isugu imaan doonaan dadka ka soo jeeda Faqashini iyo Dhulbahante ee dibadda iyo qurba joogta iyo culimada iyo dadka waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo haweenka iyo dhammaan macallimiinta inay isugu yimaadaan shir weyne qaran taas oo go'aan lagu gaari doono masiirka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn go'aan cadna ay ka soo saari doonaan Somaliland haddii ay ku biirayaan iyo hadday ka gooni noqonayaanba arrimaha Somaliland arrimaha Laascaanood loo madax baneeyo dadka deegaanka iyo garaadada magaaladaas u dhashay marka xaaladda Muuse Biixi Cabdi waxaa leeyahay umaysan cuntumin waxaana laga yaabaa inuu bayaan tan ka duwan sheego ama uu ciidamada u dhaw halkaasi kama baxaan waxay kale soo saareen in ciidamada u dhashay Dhulbahante iyo Faqashini ee ku jiro ciidamada sheeg la yiraahdo Somaliland inay deegaanada hadda ay joogaan ee magaalada duleedkeeda ay sii joogaan laakiin ciidamada kale ee reer Somaliland ay dhulkooda ku laabtaan go'aanka iyo shirkan ay ka warsugaan marka shirkaas oo dhamaaday iyo go'aanadii ka soo baxo ayaa dib loogu laaban doonaa go'aankaas ana markaas shirkaas kadib wixii ka soo baxay ayaa lagu heshiin doonaa marka arrintan soo ma muuqato dee naga baxo oo cad ee maamulka Somaliland annaga ayaa maamul dhisanayna amaba dee ma garanaysaa federaal ku darsanayna ama meesha doon ku darsanayna soo arrintu saa u muuqato arrinta saas ay u muuqataa laakiin Muuse Biixi Cabdi arrintaas uu ka dhigay adiga la leeyahay isla markiiba xubnihii markii asaga soo gaareen warkiina loo sheegay isla markii uu cuntami weysay waxaana la leeyahay warar intaas ka duwan ayuu soo saaray wuxuuna sheegay in magaalada Laascaanood xoog lagu gali doono qof laga hibaysan doono aysan jirin ciidamada Somaliland ay magaalada gali doonaan dad yar oo maxay sheegay dhalinyaro ah oo is-aabulayna inuusan warkooda dhageysan doonin dagaal aad u culusna oo la gali doono nimanka lagu magacaabo reer Qaatumo wuxuuna diyaar u yahay dagaalkii ugu xumaa inuu la galo marka taas waxaa la leeyahay wuxuu diidan yahay wada hadalka iyo heshiiska dhexmari doono ama isku soo dhawaanshaha meesha ayay ka baxday waxayna halkan noqon doontaa xaalad aad u halis ah haddii mar labaad dagaal ka dhaco magaalada Laascaanood fargadow aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow deegaanadaasi ayaan weli ku jira daawadayaal dhanka maamulka Somaliland ayaa arrintan ka biyo diiday waxayna ku tilmaameen in ay gacmo shisheeye ku jiraan arrinta Sool Sanaag iyo Cayn oo dabada laga riixayo waa sida ay
dad badan oo reer somalilan aaminsan yihiin. Dhanka kale gooniyow magaalada hargeysa beelaan sidaa uga fogeyn ayaa la tilmaamayaa in maamulka hargeysa ay maanta kaga dhawaaqeen in shidaal laga helay, taasoo bishii Sebtembar ee sanadkii hore ay naga tagtay la sheegay in cilmiyood meel laga qodeeyey laga helay shidaal. Haddaba waxaa la sheegayaa in shidaalkii uu dhaboobay, taasoo dowladda federaalk Soomaaliya dhowaan ay bayaan kasoo saartay oo shirkadda General Energy ay dhahaan ay uga digtay in ay deegaanadaasi ay ka qodo guud ahaanba wax la yidhaahdo shidaal. Intaasina waa dhanka Somalilan iyo deegaanadaasi. gooniyo haddaan usoo noqono magaalada Baydhabo waxaa la sheegayaa in muxaafid iyo mucaaradba la isugu tagay lafta gareen arrimo uu abaabul uu meesha ka wado. Haddaba maxay ugu dambeysay iyada? horta fargodu waa in meesha la yiraahdo Baydhabo waa la isugu tagi doonaa, waxaana lagu qaban doonaa shirweyne u dhexeeyo nimanka mucaaradka ku ah lafta gareen iyo lafta gareen maamulkiisa, taasoo ay dhexdhexaad ay ka tahay dowladda federaalk Soomaaliya. waxaana guddi magacaabay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. guddigaasoo ka koobnaa 7 xubnood, waxayna ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ayagoo diyaarinaya shirweyne ee la isugu yimaado ee lagu dhexaadiyo mucaaradka iyo muxaafidka dowladda deegaanka dowladda maxaa la yiraahdaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed. marka waxaa meesha tagi doona leeyahay madaxweyne Xasan Maxamuud iyo wafuud kale oo dowladda federaalk Soomaaliya ka socota iyo Sheekh Aadan Madoobe. dhammaantood waxay ka qayb gali doonaan leeyahay shirka, wuxuuna dhici doonaa maalmaha soo socdo. qabanqaabo aad u weyn ayaana halkaas ka socoto. marka waxaa la rajeynayaa in Koonfur Galbeed isku soo dhawaansho laga muujiyo, in mucaaradka iyo la isku soo dhaweeyo, go-aan cadna laga soo saaro, madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaankana ay markhaati ka noqdaan go-aanada lagu heshiin doono. marka amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyey maadaama maalmihii lasoo dhaafay shaqaaqo iyo cabsi iyo ciidamo iyo hub aruursi uu ka jiray magaalada Baydhabo. laakiin hadda waxaa la sheegaya in xaaladdu isbedeshay, isku soo dhawaanshana oo jiro, ciidamadana amniga ay si toos u sugayaan. mar dhowna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud iyo wafuud kale ay tegi doonaan, iyo nimanka mucaaradka ka socdo Koonfur Galbeed meesha isugu tegi doonaan ayagoo xildhibaano iyo dad siyaasiyiin oo ay ka mid yihiin Sharaf Sakiin iyo Maxamed Aadan Fargeeti oo mar dhow gurigiisa la weeraray ay halkaas tegi doonaan. wadahadal dheer iyo shirweyne qaran halkaas lagu qaban doono, go-aan cad oo Koonfur Galbeed iyo masiirkeeda looga hadlana laga soo saari doono fargodow. marka waxaan dhihi karnaa reer Koonfur Galbeed guul ayay gaareen haddii shirkaas sida la rabo u dhaco, markaasna lafta garan xaaladiisa iyo arrimaha go-aankiisa iyo muddada uu haysan doono xilka go-aan laga soo saari doono. aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow. dhanka kale magaalada Muqdisho ambaba dhanka magaalada aan idhaahde dowladda federaalk Soomaaliya waxay tilmaamaysaa in aysan la gelin kooxda al-shabaabka lana geli doonin heshiis, taasi oo baraha bulshada lagu faafiyey in dowladda federaalk Soomaaliya ay la geli doonto kooxda al-shabaab heshiis. Haddaba gooniyow heshiiskaasi qaabku u socdaa oo ma heshiis jira mise dowladda inkastoo boonaysa? horta dowladda federaalk Soomaaliya waxaa u hadlay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Cabditax Qaasim ninka lagu magacaabo, kaasoo shalay ka dhawaajiyey in shabaabku ay codsadeen in wadahadal dowladda la galaan, asaguna uu sheegay dadka ajaanibta inuusan wadahadal la geli doonin, laakiin wixii shabaab soo dhiibay ama fikirka shabaabnimada ka tanaasulo inuu soo qaabili doono ama dowladda federaalk Soomaaliya ay qaabili doonto. laakiin ayagu wadahadalka sida u rabaana saas ma aha. laakiin shabaabka nin u hadlay oo warfaafinta u qaabilsan sida la sheegay wuxuu sheegay inuu dowladda Soomaaliya uusan wadahadal ka dhexeyn karin, wax shabaab dowladda Soomaaliya iyo shabaabna ka dhexeeyana aysan jirin, dagaal waxaan ahayn oo ka dhexeeyana aysan jirin. marka ninkaasi magaciisa lama soo xigan, laakiin waxay sheegeen warbaahinta shabaab inuu ka tirsan yahay, laakiin shabaabka inay codsadeen in dowladda federaalk Soomaaliya leeshiyan oo wax cad wax qarsoonna ma aha. laakiin waxaa la leeyahay dowladda federaalk Soomaaliya si toos ay uga jawaabtay. waxaana hadlay la taliyaha dhanka amniga Xuseen Macalin Maxamuud ninka lagu magacaabo, wuxuuna sheegay in wadahadal shabaab iyo ayaga dhex mari kara uusan jirin, dowladda federaalk Soomaaliya aysan diyaar u ahayn shabaab inay wadahadal la gasho. shabaab waqtiga wadahadal looga baahnaayna ayagu ay diideen. hadda laakiin wuxuu yiri awoodooda ayaa daciiftay, waqtiga wadahadal la geli lahayn shabaabka lama joogo. wuxuu sheeganay in dagaal ay ku dhexeyn doono lana cirib tiri doono shabaabka. marka dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan in shirqoolo far badan oo shabaabka ay dhigayaan, taasoo shabaab badan oo soo dhiibay ay jiraan, kuwaasoo sheegay inay qabiilo ka tirsan yihiin, markii horena qabiilada ay ka dhasheen iyo shabaabka ay u dhexeeyeen, markii dambena ay isaga soo tageen, taasoo la sheegay in shirqool ay shabaabka adeegsanayeen ay tahay, hadhowna ay qaraxyo ku fulin doonaan ama xogaha dowladda federaalk Soomaaliya ama dhulka dowladda ay qabsatay sir laga gudbin doono. marka waataa hore u sheegnay saraakiil dowladda la shaqeysay iyo dad kale oo ka tirsan, dadkaas oo xogta siiya shabaabka inay ku dhex jiraan dowladda federaalk Soomaaliya iyo ciidamadeedaba. marka dadkan soo dhiibay qaybo ka mid waxaa leeyahay qabiilad ay nabadoono ayaan ahaynay, saas ayaan isku soo dhiibeen. markii ay soo dhiibeen waxaa lagu sii daayay bulshada, taasoo dhibaato weyn keentay. madaxweyne Xasan Maxamuud waatuu Jimcihii ka dhawaajiyey inaysan suuragal ahayn in qof is soo dhiibay lagu dhex daayo bulshada. marka shabaabku waxay damacsan yihiin dhibaato aad u fara badan oo shacabka Soomaaliya loo geysto, waxaana la leeyahay taas in fiiro gaar loo yeesho ayay u baahan tahay. waxaana xog badan laga bixiyey oo madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in taas aan laga yeeli doonin. gooniyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay. gooniyo haddaan dib kugu soo noqdo, ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u dhoofay dalka Masar,
wararkuna waxay sheegayaan in dowladda Masar oo in badan isku taxallujinaysa inay galaangal fiican ku yeelato dowladda federaalka ee Soomaaliya oo haatan la sheegay in ciidamo ay u tababari doonto ilaa iyo 5,000 ilaa 8,000 gaariya inta u dhaxaysa ay uu ku tagay haatan ra'iisul wasaaruhu maxaan ku dhahay booqasho gaaban arrintaas maxaad faahfaahin ka haysaa horta xamse cabdi bare maanta wuxuu u duulay magaalada qaahira ee dalka masar wuuna gaaray halkaasi waxaana kusoo dhaweeyey halkaasi dowladda masar wufuud ka socotay waxaa kaloo la kulmay jaalid soomaaliyeed oo halkaas joogay oo ay safaaradda oo si gooniya asaga usoo dhaweeyey marka kulamadii oo yeelan lahay caawa ilaa berri ayuu la yeelan doonaa waxaana la sheegay in xiriir dhanka amniga ah iyo dhanka iskaashiga ciidamada inuu dhex mari doono soomaaliya iyo nimanka la yihahdo masar marka madaxweynaha ra-iisul wasaare xamse cabdi bare wuxuu booqday meelo fara badan wuxuuna la kulmi doonaa madaxweyne al-sisi iyo dad kale oo kamid ah saraakiisha ciidamada wuxuuna booqan doonaa laleeyahay sidii wararka nagu soo gaarayaan dadka shacabka ama ardayd wax ka barata magaalada masar ee qaahira waxaana leeyahay in halkaasi wax badan uu kasoo qaban doono isdhexgalka bulshadana wax weyn ka tari doono marka ciidamo gaaraya 1,500 ay waxay ku sugan yihiin magaalada qaahira oo dowladda federaalk soomaaliya loo tababarayo laakiin 5,000 ayay codsatay masar inay tababari doonto ayna qalabeyn doonto marka masar iyo imaaraadku waxay kusoo noqonayaan mar walba inay dowladda soomaaliya xiriir la samaystaan hay-adaha amnigana ay xiriir badan la wadaagaan si amniga lasaga kaashado waxaa kaloo la sheegaya in mahad maxamed salaad oo ah taliyaha nisa hadda uu ku sugan yahay magaalada abudhabay ee isutaga imaaraadka carabta asagoo safar qarsoodi halkaas ku joogo lana sheegayo inuu halkaas asaguna xaaladaha amni ku saabsan oo kala xaajoonayo dowladda soomaaliya iyo dowladda isutaga imaaraadka carabta marka dadku waxay isweydiinaan mar walba siyaasiyiinta dowladda soomaaliyeed mar walba ay dowlad imaado maxay qatar iyo masar iyo ugu dhex meereystaan iyo qatar iyo meelahan imaaraadka meelo kale maysan jirin saaxiibo kale oo caalamka maysan jirin ay isweydiinayaan laakiin khaliijku waa wadamada curyaamiya soomaaliya oo mar walba horumarka soomaaliya aan rabin in soomaaliya shidaal laga baarana aysan ongoleyn marka dhibaatada ugu badan iyo culeyska ugu badan waxaa soomaaliya uga imaadaa khaliijka taasoo mar walba diideyso inay dowladdu lugaheeda isku taagto si hadhow horumar aysan u sameyn ama shidaal baaris badan aysan uga dhicin soomaaliya marka waxaa la dhihi karaa xamse cabdi bare safarkiisa 2 maalmood ay halkaas ku joogi doonaa wuxuuna soo gabagabeyn doonaa labadaas maalin ka dambe waxaana ogaan doonaa bayaanka ay kasoo saaraan dowladda federaalk soomaaliya laakiin hadda waxay ku sheegeen inuu booqasho un halkaas u tegi doono waxaan kaloo la ogeyn xamse cabdi bare inuu u tegi doono ciidamada 1,500 ee halkaas tababarka loogu geeyey oo hadda dufcadii ugu horeysay tababarka loo qaaday ay yihiin kuwo kalena hadda magaalada muqdisho laga qorayo ayagana la sheegaya in dib loogu qaadi doono halkaasi masar oo ayagana tababar loo furi doono marka ciidamada soomaaliyeed meel walba lagu tababaraa eritrea lagu tababaraa masar lagu tababaraa waxaa lagu tababaraa turkiga meelo aada u fara badan lagu tababaraa laakiin ciidamada aadka loo amaanay oo tababarka ugu heer sarreeya wato waa ciidamada turkiga iyo eritrea ay tababareen oo hadda kalsooni weyn lagu qaba lama oga tababarka ciidamada hadda masar ka imaan doono xogta iyo tababarka ay la imaan doonaan iyo awoodda ay la imaan doonaan lama oga inay daacad ka tahayna masar inay ciidamo u tababarto soomaaliya lama oga fargodo aada iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo daawadayaal inta badan ka faallooda arrimaha dalka soomaaliya iyo guud ahaanba geeska africa daawadayaal barnaamijkeeniina inta ayaan kusoo gabagabayneynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kamid lamid ah waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo